gacan ugu jira abti ma jiraan waad ogtihiin in abti ay hawshaasi fara ka baxtahay oo meesha ay fowda ka jirto waliba khaas ahaan nimanka bahrar samee ayaa abti hawsha deefowdada wada cabdi badoobe iyo garaad jaamac garaad cali baa hawsha abti deebeesha dhagal iyo godob wixii ka dhashan nimanka bahrar samaale annaga qoyaygan jaamac siyaad arrinka waxaanu kala soconno ma jirto garaad jaamac ismaaciil isaga cidlo degan oo lafihiisa baxsado assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh idilhaanti meel kasta adduunka ka joogtaan soo dhawaada waxaana wanaagsan meel kasta adduunka ka joogtaan walaalku wardaadan halka naga taasoo barta kulan YouTube career YouTube fadlan hadaa ku cusubtay kanaalka YouTube ka subscribe noo saara soo kale muuqaalka noo like gareeya share gareeya oo la wadaaga asxaabtiina soo kale fikirkiina aragtidiina isku dayna xaqoo soo aad ugu reebtaan dabcan madawada reer Soomaaliland runtii sida ciwaankayga iyo hordhacayga soo aragtay waxaan doonayaa in isku taagno cod wiil maanta oo abti loo yahay markan ku leeyahay abti loo yahay waxa weeyaan beesha isaaq ay abtu tahay runtii dhamaan marka codkan dhageysataan runtii waxyaalo fara badan baa idin baxaya diyo fara badan oo idinkeeda ka mid ah waxaad oran doontaan codka kani waa been ama waa been abuur oo runtii waa cod la sameeyay laakiin markii aan isku dayay inaan codkan soo xaqiijiyo codkan waxa lahaa wiil abti loo yahay runtii waqtigan xadirka magaalada Laascaanood jooga runtii sida caamka ah waa la isla hadlaa dadku waa wada xiriiraan wadad ehela meel kala tagmayaan runtii waa wiil iyo abtigi iyo sidoo kale hooye iyo inankeedii marka meel kala tagay habeeraatay ma jirto dadku waa dadkii dalkuna waa dalkii wala way colaad jirto dagaalana ay jiraan laakiin dadku waa is wada xiriirinayaan labada dhanba wiilkan dhalinyarada codkiisa ayaan doonayaa saxaafada qaaliga inay diisi daayo kadibna wixii fikir iyo aragti ah inagu aan ka dhiibano codku 3 mirir buu soconayaa 3 mirir codkaba waxaan jecelahay inaan diisi daayo bal marka koobaad codkaasi ila dhageysta saxaabay عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبتو أدبان كو سلامي أبتي وان كمغرا تليفونكا دي ماشي بان اسكا جوغنا إنكارت قبتو مغالدي أبتي واحد أكتاين مغالدي اسكا دي فوضو وليكا جرتو ماشانا أبتي وحا دي قعانتا كو هايو مامولا عيال كايريني جماهيرتا أبتي ليلاها ماشا مامولا oo nimankan odayaasha ah ee garaadada wax gacan ugu jira abti ma jiraan waad ogtihiin in abti ay hawshaasi fara ka baxtahay oo meesha ay fowda ka jirto waliba khaas ahaan nimanka bahrar samee ayaa abti hawsha deefowdada wada cabdi badoobe iyo garaad jaamac garaad cali baa hawsha abti deebeesha dhagal iyo godob wixii ka dhashan nimanka bahrar samaale annaga qoyaygan jaamac siyaad arrinka waxaanu kala soconno ma jirto garaad jaamac ismaaciil isaga cidlo degan oo lafihiisa baxsado waad ogeydeen waa tii darawalkiisa la dilay iyo ninkana lagu dhex dilay gaarigiisa isoo ka degay jaakadiyo waa tii la beegsaday nimanka bahrar sameeyay oo Puntland ay soo lacag siisay ay dileen okay wadawateen runtii wiilkan dhalinyarada wuxuu la hadlay wiil abtu ah wuxuu sheegay kulli muuqaalkiisa waa inay dhameystir doonaa laakiin waxaan doonayaa intaynaan muuqaalka aan idin dhameystirin inaan yani kolba hal mir aadisi daayo wiilka dhalinyarada wuxuu sheegay abtigu loo yahay in ulbaanta laftiisu uu ku qaybsan yahay qaabka loola macaamilayo dadka maxaabiista qaabka loola macaamilayo dadka maxaabiista ah ee Soomaaliland ay ka hayaan ciidamada ah wuxuu sheegay in eedu iyagu ay iska duwan hadii ay yihiin beesha jaamacsiyad runtii deegaan ahaan ee Laascaanood iskale wuxuu yiri hadii aanu nahay beesha jaamacsiyad kulama socono ama raali kama nihin in habeen walba maxaabiis lala baxo sidoo kale la dilo la bareeyo oo markaasi bisha cas loo diro si caamka ay suunahay waa jimcihii saddexaad ee ka soo wareegay dagaalkii maxaabiista faraha badan ee Soomaaliland lagaga qabsaday waa jimcihii saddexaad isla waqtigan aan la hadlay waa jimcihii saddexaad ee ka soo wareegay wuxuu yiri meesha shalay martay hay'adda bisha cas ee dhaawaca iyo meedadka uruurinsay ay shalay dhaawaca iyo dhimashada ay ka qaaday hadna isla bari bay dhaawac kale ugu timaada halkee bay ka soo baxeen dhaawacaasi ama meedkaasi halkee buu ka yimi wuxuu yiri habeenba maxaabiista qaar baa la baxaa oo waxaanu aragnaa meedad cusub oo jirkoodu uu isku yaalo oo aan kala go'go'nayn oo runtii aad dareemayso meedka kan inuu yahay meed cusub meed
dhowr iyo 10 cisho yaalay inaan waxayn waa waxa ku muujinaya sidoo kale wuxuu noo sheegay eedaasi ama dhibaatada halkaasi maxaabiista lagu geysanayo in laba nin ay u geysanayaan oo aanay beesha kale ee dhulbahanti beelaha kale ee dhulbahanti aanay shaqo iyo shughul ku lahayn oo xitaa reerka ma jirteen la yiraahdo aanu kula socon laakiin reerka kaliya ee maxaabiista gowracaya dilaya guryaha iyo ama meelaha ku xunayeen kala baxaya yihiin reerka bahar rasmi la yiraahdo reerka bahar rasmi la yiraahdo ee ninka Cabdi Madoobe ninka Garaad Jaamac Garaad Ali la yiraahdo ay ka dhasheen sidoo kale waxay sameysteen buu yiri team dhalinyaro ah oo la magac baxday teamka gowraca dhalinyarada oo ay ka mid tahay buu yiri sidii muuqaalkii aad soo daawateen wiil gabadhii dhalinyarada ahayd inta isbitaalka dhaawac u yaalo wareysnaysay sidee baa lagu la macaamilay sidee baa lagu daaweeyay ay lahayd gabadhaas qayb bay ka tahay buu yiri wiilkan dhalinyaradii qayb bay ka tahay teamka gowraca maxaabiista ee habeenkii saqda dhexe kala baxa saldhigyada ama meelaha ay ku xiran yihiin sidoo kale waxa ka mid ah buu yiri Raxmayar sidoo kale teamkan wuxuu ka kooban yihiin dhowr iyo 40 qof dhowr iyo 40 qof waxba hadalin ku daalin waxaan doonayaa asxaabta qaaliga qiimaha sharafta leh mar haddii aan inagu horta dawladna hay Soomaaliland la yiraahdo dhowr iyo 3 sano jirtay oo dawlad madaxweyne leh maamul leh ciidan qaran taliyayaashood leh shacib leh oo ay u dhameystiran tahay wax walba dawladda looga baahan inagu bulshadeenna hay Soomaaliland la yiraahdo dad baa inoo taliya dad baa garwadeenno ah inagu oo ninka madaxweynaha inoo ah ku gafay ku tacaadiyay oo aynaan markaas ceeb iyo yani fadeexad u leeyahay aynaan hawada u marinahayn laakiin in la isla xisaabtamo oo accountability meeshii la keeno oo qofka ciidanka dhibaatadan horta la geliyay lagala xisaabtamo oo maxkamad la hor keeno maxaa inoo diiday runtii isku sheegnaa caawa haddii aan nahay dhalinyarada reer Soomaaliland runtii isku sheegnaa qof kasta waxaan doonayaa inaan runta gacanta ka saaro war ilma adeerayaal waalid baa caruurtoodii la caruur baa aabayaashood la oo nolol iyo geeri kula oo aabahood intaasoo sano qarankan uu jiida ugu jiray maanta dhibaatada horta leh ee ciidanka qaranka gaadhay in yani xukunkeeda cid loo rido oo dadi lagu makaxabadeeyo waa mid aan doonayo anigu waxba yeelan been kugu sheekayn waxba yeelan waxba qaranka hoo baqina iyo heesa beenayaan in lagu harowsan oo yaana bulshada Soomaaliland been in laga gaday war dhalinyar baynu nahay wixii ciidankeena qaranka soo gaaray dhibaatadii soo gaadhay hooyooyinka maanta gobolmay aabaya ubadka maanta agoomoobay yaa maanta isla bal ilma adeerayaalow بدل بيهليا ما بهود بدي بلوجسو نوريسينيا هو يدا ما أنت إنك كذي وإذا ما إنك كذي بدي بلوجسو أبو ريا مايا قرمي كجمايسا وحاسو دبعتها يو وحاسو علوليوه يو وحاسو وهن أحيا كذا على قرمي جمايسا أو أي حاكة أورانيسا مركا عادي لسكول حساب تمو تذكي خالد ما يعينك خالد كجالي ما كحبد السوي استاتيو واجب كيليه لمريو ما ندوي تولي الحمد جمهورية الصومال بدن بوسبي عبدي وحبرها بوشة سوقش كنت نسوي شيء هنا إن بدن لما دوي تهرير الصومال لأني وحنو سكوب صعب تميني قرن كيلو هاي وضعنا إذا كقرن كديبات هذا إيها قرد مدى السوق هذا أي أنا جا قدام قصص شخصيا أنا إذا كقرن ك يدوم كنا نكون ولا هاي إيجا درتو ذا نكون ولا هاي مرك حاجة ذا لقى هذا نبضن هايستو لكن عشان دي مكان كل صور فريسنا يوحصل إلى إيجا السبب تودره الحبيب إنه هذا كان نبض يحضر إيجا السبب تودره إلهي كسبه هذا حبيبي لا بعشة واحدة من الحبيب وحنا صنع سبب هو النوايا سيدي عد إسكعلون كتير صعد هالك عقومات وان عافمات قبايو شيطان وان كفيوي هذا بقى إذا كقرن كديبات دي سوق قاعدين أنت بقول الله حساب تمام إيدي ذات ديبات هذا إذا كقرن كسوق قاعدين الماضي رياله وإنه كل حساب ما هدين رؤوس وما أنا نهي
inaga haynaloo keeno runtan fiicanay dad baynu dooranaa sanad 5 sano mar baynu dad dooranaa hoggaan baynu dooranaa hoggaankaasi waxaan u dooranaa inuu dalkeena dadkan uu markaasi jiheeyo uu jid dawladeed u jeexo jid heer dawladeed uu u jeexo laakiin haddii aan hadlo waaqac jiraan ka hadlo 200 kun oo telefoon baa ilaa soo diray 200 kun oo telefoon baa la soo diray lagu oranay waxa qarankaad gashay hayay saldhig baad ku wareegaysaa saldhig baad shiiday isla muuqaalkan uu ku xawaalay soo wacaya ciidan bay soo wacay oranay hayay saldhig baad shiiday intan ciidanka qaranka garabkooga ahayna qof ugu oranaya waad mahadsantahay ma jiro waad mahadsantahay qof ugu oranaya ma jiro warin ma adeer dhibaatada ciidanka soo gaadhay habeen walba jeerka laga baxayo la dilayo la gowracayo la biraynayo yeedida cid hala qaado cid ha loo markaas hooyada maanta inankeedii ka maqan yahay ay seexanaysaa markaas ilmaha maanta aabihii uu ka maqan yahay uu si ladnaana ku seexanaya halkan ay wada fadhiyaan $2,000 bay qaadanayaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland baa xukuumadda Soomaaliland garwadeenka ah mas'uuliyadda timaadana dadba dabarka loogu heeday aad ma uga xumahay anigoo reer Soomaaliland meel ay joogtaanba maanta dhalinyarada la hadlaya dadka hoggaanka ay dooranaysaan ee aad codkiina siinaysaan ee aad cadceeda u taagan tihiin ha ahaadaan dad la xisaabtami kartaan dad aad wax u sheegi kartaan dad aad idinkoo xor wax kula hadli kartaan luqadda iyagu fahmayaan aad kula hadli kartaan laakiin haddii aad afkiina laba leero saartaan oo aad aamusnaataan aragoo dhaaf waxa isoo kordhay aniga waxa isoo kordhaya in jaamiciyaan ahay 2 sano ka hor baan jaamacad dhameeyay wala ana shahaadadeedii kuma shaqo tagin cid iyo qiimeynaysa ma jirto hadan wasaaradda reer ma tahay la oranaya wasiir ma wada taaba la oranaya agaasimo kula socda baa la oranaya garaad ama suldaan kula socda baa la oranaya shahaadada iyo cilmiga wato lama qiimeynayo hadan ka hadalna wada xiran tahay qarankaada fagaadaysa qaranka taadka aad baan naga xumahay raad baan islaamaya asxaabteeda qaaliga waxa leeyahay ilaahay xaqayna waafajiyo dhalinyaro marka cid dooranaysaan cid aad la xisaabtami kartaan ilmaha reer aan doorano aad baan islaamay